qaraxan oo dhacay saakaroonimadii ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ku dhawaad 90 qof ayaa ku geeriyooday in ka badan 350 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarkaasi qaraxan ayaa ka dhacay qoobaad loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan safaarado shisheeye waxaana ka agdhaway safaaradda dalka Jarmalka dhismaha safaaradda dalka Faransiiska ayuu qaraxaasi waxyeelo soo gaarsiiyay sidoo kale waxa wax ku waxyeeloobay shirkadda telefoonada ugu weyn ee dalka Afghanistan ilaa iyo haatan ma cadda cidda rasmiga ee ka dambeysay weerarkaasi balse Taliban iyo kooxda la baxday dawladda Islaamka ayaa labaduba kal hore weeraro ka geystay magaaladaasi Kabul bishii la soo dhaafay ayaa kooxda Taliban waxa ay ku dhawaaqday in xilliga guga ay bilaabayso guluf colaadeed oo cusub oo lagu bartilmaameedsan doono xoogaga ajaanibta kooxda Daesh ayaa sidoo kale kal hore weerar ka geysatay qaybo kamida magaalada Kabul qaraxan oo ka mid noqonaya qaraxyadii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca caasimadda Afghanistan iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi